soo dhawaada jaalayaal tiimka Beta Squad waxay sameeyeen challenge ah isku day inaadan gacmahada ka qaadin miiska dhammaan waxay gacmahooda saari doonaan miiska dushiisa waxaa lagu tijaabin doonaa waxyaabo kala duwan oo cabsi gelin kara tiimka challenge-gan wuxuu socon doonaa ilaa tiimka dhan ay gacanta ka wada qaadaan miiska marka laga reebo guuleystaha waxay gacmaha saaraan miiska kadibna challenge-ga ayaa u bilowda Junks ayatul kursi ayuu ka akhristaa kadibna wareega koowaad ayaa bilowda wareega koowaad waxaa loo keenaa cayayaano iyo masas yaryar qofkii gacantiisa qaada wuu ka baxaa tartanka Darkest isla markiiba wuu ka kacay meesha cabsi uu ka qabo xayawaanada marba qof ayaa lagu tijaabiyaa muhiimaduna waa inuu isdhiibo waqti kooban ayaana sidaas lagu sameyn doonaa wareega koowaadna sidaas ayuu ku idlaaday marka laga reebo Darkest inta kale way ku adkaysteen inaysan miiska gacmaha ka qaadin inta la gaarin wareega labaad waxay Darkest ku soo celiyeen gameka si uu uga qayb galo wareega labaad waxaa lagu amraa inay indhaha xiraan balse Darkest cabsi daran ayaa haysay mana xirin xayawaanka loo keenay ayuu ahaa isla markiiba Darkest si la mid ah wareegii koowaad uu cararay wuxuuna ku sababeeyay inuu eyga ku nacay muuqaal ay hore uga sameeyeen oo uu soo weeraray wareegan mid walba oo kamid ah tartamayaasha waa loo dhaweyn doonaa iyagoona ka baqaya inuu qaniino qofkii miiska ka kaca uu ka bixi doonaa tartanka nasiib wanaag wareegii labaad way ka soo wada gudbeen mar kale Darkest ayay Janice kala siiyaan wareega saddexaad waxaa loo keenaa Dolier isla markiiba Junks iyo Darkest ayaa ka booday miiska Darkest gabi ahaanba uu ka baqaa xayawaanada Junksna wuxuu dhahaa markaan ilkihiisa arkay go'aan ayaan ku gaaray inaan miiska iskaga kaco marba qof ayaa loo saaraa si loo tijaabiyo haddii midkood uu ka kacayo miiska AJ qoorta ayaa loo saaraa balse isma dhiibo wareegii saddexaad ayaa soo idlaaday balse waxaa weli tartanka baaqi ku sii ah AJ Nico Sharky iyo Kenny dooligii saxaradiisa ayay isku turturaan si midkood ay gameka uga saaraan dhanka Sharky ayaa loo tuuray hal gacan ayuuna kor u qaaday sidaas ayuuna gameka uga baxay intaan la gaarin wareega afraad Darkest mar kale ayuu soo fariistay waxayna weydiiyaan waxa uu mar kale soo doonay markii la keenay xayawaankii afraad sidii caadada u ahayd Darkest wuu cararaa si la mid ah Junks Darkest markuu haddana isku dayay inuu sheego sababta uu uga soo cararay tiimka way ku hooriyaan tiimka waxaa loo keenay xayawaan aan u malaynayo inuu yahay abees cagaley mid walba waa loo dhaweeyaa balse midkoodna isma dhiibin intaan la gaarin wareega shanaad Darkest si toos ayuu isku dhiibay iyagoo iska ciyaaraya waxaa usoo gelaya nin ku labisan suit blue ah waa wareega ugu xun wuxuuna u sheegaa inuu yahay qofka ugu neef urka badan adduunka AJ isagoo ka fog ayuu haddana usoo uraa inay run tahay waxaa tijaabinaya Sharky isagoo ka fog ayuu ku dhahaa neefso wuxuuna la yaabaa inay usoo urtay isagoo intaa u jira Darkest ayaa markiisa tijaabiyey isla sidii ayayna ugu soo urtaa Nico markuu ninka kusoo neefsaday wuxuu ku dhawaaday inuu matago halka AJ uu adkaysan waayay kadibna uu meesha isaga cararay AJ wuxuu ku tilmaamo ayuu garan waayay waxaa soo haray waa Kenny iyo Nico wuu dhibsadaa haddana wuu adkaystaa kadib wuxuu u wareegay Kenny hal mar ayaana kaga filnaatay inuu gameka kaga saaro wuxuuna dhahaa kuwii hore waan u dulqaadan karay laakiin ninkan neeftiisa looma dulqaadan karo Nico ayuu kusii dhawaadaa ilaa uu waqtiga wareega ka dhamaado tiimka idil sanka ayay ka wada qabsadaan Nico ayaana ku guuleystay tartanka fadlan haddii muuqaalku ku cajibiyay like noo saar mahadsanid jaalle